waa tahay daawadayaal halkan waxaad ka arkaysaan waa desktopkaygii weeyaan oo maxay ahayday waxaan isticmaalayaa Apple MacBook Pro waa 15 inch 2017 processorkiisu waxa weyn 2.9 gigahertz quad core Intel i7 waa 16 gig of RAM baan haystaa graphics cardkana wuxuu leeyahay laba graphics card mid waxa weeyaan Intel HD-ga oo built in ah ka kalena waxa weeyaan Radeon Pro oo 4 gigabyte graphic card marka waxa weeyaan graphics card aad u fiican buu leeyahay storage-kayga ama disk igu jirana waxa weeyaan waa 1 terabyte flash 1 terabyte SSD bay igu jiraan oo waxaad aragtaa 680 baa wali available ii ah waayahay haddaba waxaan runtii rabay waxaa iska xidho inaan tuso softwarekan aan ku shubtay Apple-kayga si aan u isticmaalo Windows iyo Apple-ba anigoo laptop kaliya isticmaalaya marka imika waxaad arkaysaan waa Apple MacBook-gaygii waa kuwa softwaradaydii waa Apple Mac caadiga taqaanaan waan idin tusay laakiin waxaa laga yaabaa inaan marmar u baahdo inaan isticmaalo Windows 10 operating systemka la yidhaahdo sidaa darteed dee ma laptop kale inaan soo qaatay noqonaysaa soo ma laakiin VMware Fusion softwarekan la yidhaahdo Windowskana waxaa la yidhahdaa VMware Workstation wuxuu kuu saamaxaya ama uu kuu ogolaanayaa in aad adigoo laptopkaagan haysta keliya aad ku isticmaashid laptopka operating system kale adoon baktiin haddaan doonayay laba operating system baan laptopkan ku shubi karaa oo diskigayga intaan kala qaybiyo diski haddaan intusayay ayaan laba qaybood u kala qaybin karaa qaybna Windows ka dhigi karaa qaybna Mac markaan shidayo ayaan markaan doonana Windowska dooranaya markaan doonana Apple Mac-gaygaan dooranaya si aad anigu saa kama helin oo waxaan jecelahay laptopkaygii oo ii shidan oo aan Apple Mac-gayga isticmaalayo in aan Windowsna aan isticmaalo Windowska sida application koo kale aan u isticmaalo waayo bal inoo shid Windows 10-kaygii baan shidaya wakaale restoring virtual machine-kii ayuu oo hore igu shidnaa buu dib usoo halkiisii hore kusoo celinaya xaaladiisii hore waa tahay full screen baaban geli karaa haddaan doonayo iminka saad Mac-gayga u arkaysid ayaa waxaan taabanayaa full screenka markaan taabto waa ku kaa Windows 10 baan ku jiraa miyaad ka garanaysaa inaan Windows laptop isticmaalayo ama Windows desktop ka garan maysid haddii aan loginkayga geliyo waxaad arkaysaa inaan Windows desktopkaygaan galay iga xir safxaddan BBC dagayna gee marka waa adiga arka desktopkaygii waan ku jiraa waa virtual desktop san markii horeba idiin sheegayay website-kan iska xidh inoo desktopkan iga xidh waa ku kaa waxa weeyaan waa Windows 10 weliba waa version 1903 aan ku qoro halkan Windows versionka ayuu ii soo saarayaa idinka arka Windows waxa weeyaan Windows version 1909 waa versionka ugu dambeeyay ee Windows 10 waa ka ugu cusub haddii aan taabto halkan aan yidhaahdo properties this PC properties waxaan ku tusi karaa markaa computerkayga RAM-ka uu leeyahay RAM-kan waa aniga idinku lahaa Apple Mac-gaygu 16 gig oo RAM ayuu leeyahay 5 gig ayaan uga soo gooyey Windows virtual machine-kayga Windows 10 virtual machine ama computerkayga Windows 10-ka ayaan 16-kayga baan 5 gig uga soo gooyey waad aragtaa processorkiisi wakaa operating systemka waa 64 bit waa Windows 10 Enterprise haddii aan halkan ku noqono hard diskayga waad aragtaan 100 gig baan ka dhigay dee 1 terabyte buu Mac-gaygu leeyahay moogta SSD 1 terabyte SSD marka 100 gig waxba maaha dee markaan doonana Windows ayaan isticmaalayaa marka aan doonana Apple Mac-gayga ayaan usoo noqonaya Windows Apple Mac Windows Apple Mac wax allaale wax markaa u dhexeeya
oo aan ahayn marmar inaan u baahdo applicationada Windows oo kale مثلا iminka serverada oo kale aan ka shaqeeyaa haddaan u baahdo inaan group policy isticmaalo waxyaabaha Windows u khaaska aan u baahan inaan isticmaalo Windows 10kaygan ayaan ku isticmaalaa marka aanan doonayn Windows inaan isticmaalo dee Apple Mac-ayga ayaan iskaga noqdaa idinka arka soo maydaan garan marka waxa weeyaan waa Windows 10 oo lagu shubay Apple Mac yareeyo insha Allah taala fiidiyoga dambe waxaan ku daawan doonaa sida loogu shubo Windows 10 virtual machine-ka iyo sida aadba uga faa'iideysan kartid ama Windows ha noqdo machine-kaagu oo desktop kale aad ku shubatid sida Linux oo kale adigoo Windows haysta virtual machine Linux ku dhex shubanaysaa si aad ugu barbaratid ama haddaad doontidba waxaaba jirta inaad adigoo Windows machine haysta inaad virtual machine Apple Mac aad ku shubi kartid halka anigu Windows kan ku shubtay adigu Apple Mac baad ku shuban kartaa marka dii la ka dhigo fiidiyoga inoogu xiga insha Allah ama fiidiyada dambe ayaan ku eegi doonaa sida VMware Fusion ama VMware Workstation loogu shubo computerkaaga si aad operating system kale ama Windows ha noqdo ama Linux ama Mac aad ugu shubatid aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha ilaawin inaad subscribe garaysid fadlan share gareeya dadka IT-ga jecel iyo ummadda ciddii kaleba gaadhsiiya aad iyo aad baad u mahadsantihiin like-ana taabta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu